Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba nagala socotaan halkani waa Wacaal Media kusoo dhawaada muuqaal kale halka waran marka aad ka soo dhacdo 30,000 oo feet ama 9,444 mitir ama aad ka soo dhacdo 9 kilomitir barnaamijkeena maanta waxa aynu diiradda ku saari doonaa haduu alla ma yadhihin maxaa kugu dhacaya haddii aad ka soo dhacdo diyaarad sidee ayuuna xaalkaaga ku dambeyn karaa masaafada aan hadda idin soo sheegnay kaliya hal qof ayaa inta caalamka la ogyahay ka badbaaday 30,000 oo feet kadib markii diyaaradii ay ku safraysay ay qaraxday daawade haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow oo subscribe saaro lana sii wadaag saaxiibada haddii aad fiidiyowga ka heshayna sii sheer garee oo la sii wadaag saaxiibada si ayagana ay u daawadaan waad mahadsan tahay 26 bishii Janaayo 1972 markii ay qaraxday diyaaradii J80 ee uu duulimaadkeedu ahaa 367 ayaa waxaa ka soo duulay mid ka mid ah howlwadeenadii diyaaradda oo ahayd hostess Vesla Vulovic oo markaasi jirtay 22 sano ayaa markii ay diyaaraddu qaraxday waxa ay ka soo duushay diyaaraddaasi oo ku duuleysay 30,000 oo feet iyadoo oo dhigtay rikoorka ah qofkii ugu horeeyay oo masaafo intaas la eg samada intuu ka soo dhaca adana ka badbaada haddaba waxaynu eegi doonaa sidee ayay ku badbaaday maxaa ay ahayd taktikadii ay isticmaashay sidoo kale waxaan eegi doonaa ayaguna yaa kaloo ka badbaaday haddiiba ay diyaarado dhaceen maxaana macquul ah oo looga baahan yahay qofka haddii ay diyaaraddu qaraxdo in uu sameeyo waxaa jira kaartooyin la isticmaali kara markii ay diyaaraddu qaraxdo oo aad ku badbaadi karto haddii ay taada wax ka dhiman tahay waxaa laga yaabaa sheekadan hadda aan ka sheekaynayna iyo taktikadan ay dadka kala duwan isticmaaleen inay adigu ku anfacdo adigoo ah qof ku duulaya diyaaradaha kala duwan ee caalamka iskaga kala goosha lagana yaaba xilli walba ama waqti walbo inay diyaaraddu la kulmi karto cillad ama shil tanii sanadii 1942 waxaa jiray ilaa 50 dhacdo oo dad ka soo duulay diyaarad shil gashay ay ku badbaadeen kuwaasi oo lagu qoray qaybaha kala duwan ee wargeysyada iyo sidoo kale buugaagta ka soo baxa wadamada caalamka laakiin waxa cajaa'ibka ah ayaa waxa ay tahay dhammaan dadkani badbaaday ayaa waxa ay nasiib u yeesheen in ay helaan wax ay ku kordhacaan marka ay dhulka yimaadaan tusaale ahaan Vesna Vulovic waxa ay ahayd gabar fadhiday qaybta ugu dambaysa ee diyaaradda marka ay diyaaraddu qarxisay nasiib wanaag diyaaraddu marka ay kala fafaniintay qaybtii ugu dambaysay ee diyaaradda ee gadaal dambe ahayd iyo ayada ayaa isla soo dhacay gabadhana meesha ayay gashay waxa ayna dhulka ku soo aaday ayada oo ku dhex jirta qaybta dambe ee diyaaradda gabadhii iyo diyaaradda qaybteedii dambe waxay iskula soo dhaceen dhul baraf uu ka buuxay sidaa ayayna ku badbaaday walow ay dhowr meelood ka jabtay laakiin diyaaraddii ayada ay ku safraysay ee ay ka ahayd hostareeska wax ka badbaadi ma aysan jirin oo ayada kaliya ayaa ka badbaaday sababtuna waxaa lagu sheegay ayadoo uu waqtigeeda dhinaa iyo sidoo kaleete in diyaaradda qaybteeda dambe ee ay ayada ku dhex jirtay inay isla soo dhaceen oo sidaana wixii dhibaato gaari lahaa qaybtii dambe ee diyaaradda ay ka badbaadisay qofkii labaad ee diyaarad hawada ku jirta oo qaraxda ama shil la kulanta ka soo dhacay haddana badbaaday ayaa waxa uu ahaa pilotka la yiraahdo Alan Magis ayaa diyaaraddiisii waxaa gantaal la helay Faransiiska sanadka markuu ahaa 1943 isagoo oo aanan fursad u helin inuu baarashuudkiisa soo qaata ayuu diyaaradda ka soo dhacay pilotkan oo meel sare ka soo duulay ayaa waxa uu ku dhex dhacay xarun tareen ayadoo uu gudaha u soo galay qol wada dhala ahaa sidaana waxa uu uga badbaaday shilkii isaga diyaaraddiisa ay gashay haddaba talada ugu wanaagsan ee dadka diyaaradaha raacaya la siiya ayaa waxa ay tahay haddiiba aad aragto diyaaraddu inay shil gashay oo uu waqtiga kugu simo isku day in wax aad diyaaradda kala soo dhex baxdo haddiiba ay macquul ku tahay haddii kursiga uu ahaan lahaa iyo sidoo kale bogos ama shay kaleeto oo culus oo adigu marka aad soo dhacaysid dhulka kaaga hormara inkastoo taa aan ognahay inaysan fududeen oo qofku marka uu shilka la kulma uusan waqti u helaynin sidoo kaleetana uu argagaxaya laakiin haddiiba taada ay wax ka dhiman tahay waad badbaadaysaa waxaana loo baahan yahay inaad isdejiso oo marka shilka diyaaradda ay gelayso ama ayba dhacdo inaadan baalashuud ama shayga lagu soo duulo aadan u helin fursad aad isku daydo in aad wax
diyaaraddaas kala soo dhexbaxdo walow ay jiraan taktika kaleeto oo la sheegay in la isticmaali kara marka diyaaradda laga soo dhaco sida khubarada ku xeel dheer duulimaadka ay sheegeen qofka marka uu diyaaradda ka soo dhaca ilaa uu dhulka kaga soo gaarayo waxa ay ku qaadataa muddo ah 170 sekan oo ah waqti aad u yar xawaaraha uu ku soo duulayana ay noqonayso xawaare aad u sareeya isagoo inta badan la sheegay in qofka soo dhacaya uu ku duulo xawaare ah 9.8 mitir halkii sekanba uu jarayo qofkaasi sidoo kale qofka marka uu hawada ka soo dhaco hawada kore wax oxygen ah ma laha waxaana suurtagal ah qofka marka uu soo dhacaya in uu dhexda ku suuxo laakiin waxa hubaal ah oo inta badan la sheegay daqiiqad kadib qofka in uu soo naaxaya inta uusan dhulka soo gaarin taasna waxa ay fursad u siinaysaa hadiiba uu yahay qoftiisa ay wax ka dhiman tahay in uu kasii baaraandego sidoo kale khubaradu waxa ay sheegayaan masaafada uu qofka ku safraya ama uu kaga soo dhacaya hawada sare waxa ay ku xiran tahay hadba qofka ballaciisa inta ay la eg tahay qofka buuran waxaa la sheegaa inuu ka xawaare sareeyo qofka kale ee caatada ah sidoo kale waxaa la sheegaa dadka dheer iyo kuwa gaaban inaysan iyagana isku xawaare ahayn oo xawaaraha uu qofka dheer kusoo dhacaya aysan la mid ahayn midka gaaban xawaaraha uu kusoo dhacaya sidoo kale culayska jirka ayaa iyana ka qayb qaata xawaaraha uu qofka ku soo dhacayo kagana soo dhacaya diyaarad ama shayga shilka uu kula galay hawada sare laakiin khubaradu ayaa dadku waxa ay kula taliyaan diyaaraddu qofku marka uu ka soo dhacayo ee hawada dhexda uu ku soo jiro hadiiba uu markaasi miir leeyahay inuu gacmihiisa iyo lugihiisa uu fidiyo oo uu kala taago si hawada markaasi uu maraayo ay u noqoto mid isaga celin karta xawaaraha uu ku ordayana ay noqoto mid aad ugu yar tii hore ee uu ku socday sidoo kale haddii aad haysato baarashuut ayaa xawaaraha aad ku socoto ee aad dhulka ku soo aadayso waxa uu noqonayaa mid aad ugu yar marka aadan haysanin baarashuut xawaaraha qofka baarashuutka wata ee ku soo socda dhulka soona dhacaya ayaa waxaa lagu sheegay qiyaas ahaan in ay gaaraysa 5 mitir sekankiiba taasi oo ah waqti fiican oo adigu aad uga baaraandegi kartid halka iyo goobta aad ku degaysid laakiin haddii aadan baarashuut haysanin isku day gacmahaaga iyo lugahaaga in aad kala fogeyso si adiga dhulka aad ku safrayso aad ugu raadsato goob adiga markaasi kugu habboon inaad ku dhacdo sida in aad dhul wada caws ah raadsato ama biyo aad raadsato laakiin aadan marna isku aadinin dhulka dhagaxda ah si dhibaato weyn aysan kuu soo gaarin sidoo kaleete taktikada kale ee la isticmaalo ee ay khubaradu sheegaan ayaa waxa ay tahay in marka aad soo dhacaysid ee aad u dhowdahay dhulka aad adigoo dhan isgiijiso oo qaybta dambe ee jirkaaga aad hormariso qaybtaada kore ee madaxa iyo wadnahana aad isku daydo inaad kor u qaado si haddaad soo dhacdo oo ay dhibaato kuu gaarto lugaha iyo jirka kale ay dhibaato kaaga gaaraan oo aysan maskaxda iyo wadnaha qaybaha kore aysan dhibaato kaaga gaarin sidaa darteed caalamku inta hadda uu horumaray waxaa dadka lagula taliyaa mar walba inay ka foojignaadaan inuu dhici karo shil diyaaradeed isaga oo uu qofka ku safraya diyaarad gudaheeda sidaa darteed waxaa looga baahan yahay mararka qaar inuu xeelada iyo taktikooyin uu raadsado haddiiba tiisa ay wax ka dhiman tahay si uu u badbaado daawadayaal intaa waxaynu kusoo koobaynaa barnaamijkeennii maanta tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't already done so. Click on the bell in order to receive timely notifications of new, fascinating, and interesting videos that are waiting for you ahead.